Jilaaga caanka ah ee shirkadda filimada Hindiya ee Bollywood-ka Hrithik Roshan ayaa boggiisa baraha bulshada ku sheegay inuu si joogto ah u soomo 23 saacadood oo xiriir ah xilligan oo lagu jiro xayiraadda uu sababay cudurka coronavirus. Roshan ayaa sababta arrintan adag u sameynaya ku sheegay si uu u ilaaliyo caafimaadkiisa iyo fayo-qabka jirkiisa maadaama uusan jirin wax dhaqdhaqaaq ah oo la oggol yahay in bannaanka loogu baxo. Atoorahan ayaa bartiisa Instagram-ka iyo bogga uu Facebook-ka ku leeyahay soo dhigay sawir iyo qoraal isla socda uu ku faahfaahinayo sida uu xaaladdiisa u maareeyo 13 saacadood oo soon ah, #caafimaad ku noolaansho, #adkaysi, #idabtu waxay la mid tahay xornimo ayuu ku soo qoray sawirkiisa. Sawirka waxaa lagu arkay Hrithik oo kaamirada u iljibinaya. Wuxuu u muuqday in timaha madaxiisa iyo garkiisa ay ku sii badanayaan maadaama aan la soo bixi karin inta lagu jiro xayiraadda. Hrithik Roshan oo keliya ma ahan balse jilayaasha kale ee Hindiya sida Akshay Kumar, Aamir Khan, Saif Ali Khan iyo xitaa filim sameeyaha lagu magacaabo Karan Johar ayaa sawiradooda soo dhigay baraha bulshada iyagoo looga dareemayo inuu si weyn u saameeyay amarka xayiraadda. Taageerayaasha Hrithik ayaa mar kale aad ula dhacay sida uu muuqaalkiisa weli u wanaagsan yahay. Hrithik Roshan wuxuu xayiraadda kula jiraa labadiisa wiil ee kala ah Rehan iyo Hridan iyo sidoo kale xaaskiisii hore ee Susaani Khan. Wuxuu dhawaan ka qayb qaatay gurmadka dhaqaalaha loogu ururinayo howlaha caafimaadka iyo badqabka ay wadaan shaqaalaha caafimaadka ee safka hore ugu jira la dagaalanka cudurka COVID-19 gaar ahaan ciidamada booliska ee magaalada Mumbai. Atoorahan caanka ah Hrithik Roshan dhib ayuu ka soo maray filimkiisii ugu horeeyay ee uu ku soo caanbaxo. Waxaa jirtay maalin uu gurigiisa ku dhex ooyay. Filim soo saaraha reer Hindiya Rakesh Roshan ayaa si faahfaahsan uga sheekeeyay dhacdo ku saabsan maalintii uu wiilkiisa Hrithik qol isku soo xiray isagoo ooynaya kadib markii uu soo baxay filimkiisii ugu horeeyay ee Kahona Pyar Hai. Roshan ayaa sheegay in Hrithik uu culays badan dareemay markii uu habeen dhan ahaa qof ay dadka oo dhan jeclaysanayaan sida ay tabiyeen wargeyska Hindustani Times iyo qaar badan oo ka mid ah warbaahinta Hindiya. Sanadkii 2000 ayuu Hrithik markii ugu horeysay ka soo muuqday filimka uu aabihiis sameeyay, sidoo kalena ay atrisho ka ahayd Amisha Patel. Waraysi uu Mr. Roshan siiyay warbaahinta The Quint ayuu dib u soo xasuustay dhacdadaasi isagoo sheegay in wiilkiisa uu guriga yimid isagoo ka fikiraya sida ay noqotay natiijada tijaabada ku saabsaneed inuu ku habboon yahay jilista filimada iyo in kale. Wuxuu Roshan yiri, waxaan xasuustaa dhacdadan waxay ahayd 3 ama 4 bilood kadib markii uu soo baxay filimka. Hrithik qolkiisa ayuu ku dhex ooynayay. Wuxuu dhahayay, aniga arrintan ma xamili karo, ma shaqayn karo, ma aadi karo istuudiyaha. Waxaa jira basas gabdho iyo wiilal ka buuxaan oo doonay inay ila kulmaan. Ma heli doono fursad aan wax ku barto ama wax aan ku jiro ama aan diiradda ku saaro shaqadayda. Qof walba wuxuu doonayaa inuu ila kulmo. Markaas kadib ayaan aniga ku dhahay, ka soo qaad in xaaladdan aysan weligaa ku qabsanin, maxaa dhici lahaa markaas? Waa inaad u qaabishaa sida barako lagugu talagalay. Isku day inaad la qabsatid shaqadaadana wado, ha u qaadanin dhibaato. Wuuna i fahmay. Markii uu soo baxay filimka Kahona Pyar Hai, Rakesh oo ah Hrithik aabihiis wuxuu ku guuleystay abaalmarintiisii ugu horeysay abid ee uu helay soo saarista filimada iyo hagistooda, halka Hrithik Roshan uu ku guuleystay abaalmarinta ugu horeysay ee atooraha ugu wanaagsan sanadka iyo atoorihii ugu fiicnaa isagoo bilow ah shaqadiisa sidaasi u wacnaatay.